كونكن كما دعايو waxaan ilaahay ogsoonayn wuxuusan horay u qorin wuxuusan isagu doonin wuxuusan isagu ahaysiinin oo abuurin kownka kama dhacayo laakiin rabbuna tabaaraka wa taala isagoo qoray risiqa wax walbana diyaariyay ayuu hadana kownka wuxuu inoo dhigay asbaabtaasi natiija ka dhalanaysa asbaabtii baa marka rabbi tabaaraka wa taala qaarna aadamaha ayuu fahansiiyay kiisa gaalka iyo kiisa muslimka ah qaarna rabbi wuxuu ku khaas yeelay inta ahlul iimaanka ee rumaysan kutubtu soo dajiyay iyo rusushu soo diray saas daraadeed baa rabbigeen tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay inta soo sababood oo lagu gaari karo risiq waasica midna inaan ogaano waa laga maarmaano inuu adoonku raadsado risiq waasica oo faqriga iyo baahida iyo xiriiriga ka baxo ceeb ma laana nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi rabbigi wuxuu ka magan gali jiray faqriga iyo baahida daran xiriiriga nolosha ilaahay uu ka magan gali jiray waana ku ducaysan jiray risiq waasica saxaabadiisana waa ugu duceeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam sida daraadeed waa matlab sharci ah matlab u banaan way adoomada inay raadiyaan laakiin waa in asbaabtii shariicadu ugu tala gashay ay u maraan iyo jidadkii shariicadu banaysay asbaabta waxa kamid ah marka quraanka iyo sunnadu tilmaantay taqwa allah tabaaraka wa taala wal istiqama ala manhaj alla ka cabsi iyo dariiqa alla inaad ku toosto iyo inaad kitaabku soo dajiyay qabsato rasuulkiisana ateecdo wuxuu ku faray oo waajibaada inaad la timaado wuxuu ka reebayna ka fogaato waa sabab kamida asbaabta ugu muhiimsan ee risiqa waasica lagu gaaro rabbigeen quraanka kariimku ku tilmaamay cidii alla ka baqda ilaahay makhraj buu u yeelaa meeluusan filayninna waa ka irsaaqa wuxuu rabbigeen yidhi tabaaraka wa taala ummadihii hore hadday iimaan iyo alla ka cabsi isku dari lahaayeen waxaan u furi lahayn barakaadka samada iyo kuwa dhulkaba waa u furi lahayn khasnadaha barakaysan ee dhulka ku jira iyo kuwa samada labadaba waa u furi lahayn hadday iimaan iyo alla ka cabsi isku dari lahaayeen ayad kalena rabbi wuxuu leeyahay hadday toosnaan lahaayeen oo dariiqa ku toosi lahaayeen waxaan waraabin lahayn roob dhibca waaweyn baraka iyo khayr iyo waxa laga dherjin lahaa barwaaqo saas daraadeed dariiqa Allah lagu toosayo waa asbaabta ugu muhiimsan oo lagu gaaro risiq waasica oo barakaysan sababta labaad wax weeyaan tawbada inaad Allah u soo noqoto oo aad badiso dambi dhaaf weydiisiga لأن wax kasto oo dhacaya ama ha noqdo musiibo iyo dhib guud ama mid khaas oo adiga gooni kugu ah noqoto waxyaalaha dhacaya aadamaha dhibayay sababtu waa dunuubtooda way saas daraadeed waxa dhici karta xiriiriga nolosha kugu haystay inuu yahay dambi aad gashay saas daraadeed inaad ilaahay uga noqoto khaladkaad gashay oo toobad keentay waxay ka hortagaysaa musiibo soo socotay mid hadda ku haysatana way qaadaysaa saas daraadeed rabbigeen tabaaraka wa taala meel quraanka kamida ku tilmaamay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa ka quraanka kariimka rabbi ku faray wa astaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ilaahi dambi dhaaf weydiista wuxuu idin raaxaynaya raaxiin wanaagsan wa adduunyada bimaana nolol raaxa leh buu idin siinaya oo waasica waxa kamida asbaabta iyada ah inaad Allah tabaaraka wa taala tala saarashada dhabta ah oo macnaheedu uu yahay inaad dadaalna la timaado jidkii aad wax ku heli lahayd inaad la timaado dadaalkiisa natiijadana inaad ilaahay u daysood ku kalsoonaato laana tawakkulka macnaha saxda ee uu leeyahay ka isagaawo oo ah sidii nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi neefka dabar allana u tala saaro بمعنى هذا الدبر ككديش والصوابتي أيضا لا إيمان تلا صار شمها توكلنا معه هذيك استراحة على الله الدبر كأي السيتدا سا كفلنا
oo cid kale uma baahnana ayadana tawakkulkii ma aha waa inaad labada kulmiso sababtii oo la timaado iyo natiijadood Ilaahay u tala saarto tabaaraka wa tacaala oo ku kalsoonaato saasaradeed baa nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadaad Allah tala saaran lahaydeen sida shimbiruhu u tala saartaan oo kale oo idin irsaaqi laha sidoo shimbiraha u irsaaqo kale waxa kamida kalahaada inuu ruuxu kallaho subaxda hore beertiisa ku kallaho dunkaadkiisa ku kallaho warshadiisa ku kallaho xamaalkiisa u kallaho laana nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa ka sugan inuu yiri ummadayda waxa loo barakeeyay kalahaadeeda waxa kamid ah asbaabtaas inaad xiriiriso qaraabadaada raximkaaga xigtadaada dadka inaad xiriiriso oo gacantaadu u furnaato oo wajigaagu u furnaado oo xiriirkaagu u furnaado laana nabiga waxa ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu yiri cidii jecel in rizqa loo waasiciyo raadkiisana loo dibdhigo yaani cimrigana loo dheereeyo raximkiisa ha xiriiriyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa kamida wixii ilaahay ku siiyay tabaaraka wa tacaala inaad wax ka bixiso sadaqayso oo gacantaadu khayrka u furaato ihsaankaagu bato sakiinta dadka baahan mashaariicda dacwada diinta inay gacantaadu furnaato waxay kamid tahay asbaabta lagu gaaro rizq waasica maayelay rabbigeen tabaaraka wa tacaala baa wuxuu leeyahay wixii aad bixisaan badalkiisaan idin siin nabigeenuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay asmaa bint abi bakr wuxuu ku yiri asmoy bixi waa lagu siinaa ha xanibin hadaad xanibto waa laga xanibi ha cishanin hadaad cishato waa laga cishana si waa lagu siina hadaad cishatana waa laga cishana waa sida dad fara badan waxay rumaysan yihiin cagsigeeda in badan oo aadamaha kamida waxay rumaysan tahay waxoogaaga ku soo galay hadaad ku fara adeegto inaad ku taajiri والعكس هو الصحيح بل مركز توت فرع أضيكته أذيقنا ولا فرع أضيك أسبابته وحكم بذا الاستغناء بالحلال عن الحرام إن هذا حلاشة كوكا بسطوط حارانتك كافتونسو طرق ذا آد وحكو كسبانيس وحكو رات سنة إن النقطة تشتكي شريعة عذاب كو أقلاتي أو كليئة wixii shariicadu diidayna aad ka fogaato ribada iyo xaraanta iyo qishka iyo laalaabka inaad isaga fogaato oo ku gaabsato jidka alla xalaaleeyay tabaaraka wa tacaala xilli nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay malakul jibriil baa qalbiga wuxuu ii galiyay inaysan nafina dhimanaynin ilaa ay dhamaysato rizqeedii iyo ajasheeda naf dhimanaysa hadaad aragto rizqeedii baa soo dhamaaday ajasheediina waa soo dhamaatay waxba uma laabno markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam allah ka baqa oo qurxiyo wanaajiya jidka aad wax ku raadinaysaan xalaasha qaata xumaantana ka taga xaraantana ka taga markaas nabigu wuxuu ku daray sallallahu alayhi wasallam daahsi aad daahsateen rizq allah idin soo socday sugid la'aan aad sugi weyday iyaynan kugu xambaarin inaad ilaahay rizqiisa ku raadiso jid khaldan macsiyo inaad ku raadiso maxaa yeelay ilaahay agtiisa khasnadaha yaala taacadiisa lagu furtaa ee macsiyo lagu ma raadiyo jid khaldan hadaad wax ku raadiso oo ribo iyo khiyaano iyo ixtoo marin iyo shariicada khilaafto oo ay noqoto muhiimadaadu waxaan ku cuninba waa la cunaa waxay gacantaadu gaadhana waa la qaataa إلهي تبارك وتعالى وكو امتحانيا حتى هدي لغو سينا وميدان بركة سنودد كو قبنيس ساس درادد حلاشة كو قابسو إيادا سا إلهي بركينا يا إيادانا إن شاء الله تعالى إلهي تبارك وتعالى كو واسعنا وحكم إذا دعاء أسبابته رزق واسع لغو قار نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه دعاء وحكم إذا اللهم إني أسألك علما نافعا الله وحن كوي ديسنا يا علمي وحنفعه علمي اللي هو عمل فلوي وعملا صالحا عمل ونكسن والله أقبلنا وكوي ديسنا يا
ورزقا واسعا مباركا رزقي واسع وبلارا وهدنا لبركيين وكويدي سنه صحابتي سقار كميد النبي وغدعي صلوات ربي وسلام عليه رزقا بركيسنه واسعا marka inaad rabbiga barido isaga khasnadihiisa buuxaan isagana wax bixiyo isagana diida inaad rabbiga gacanta u horsatood barido inuu ilaahay cidhiidhiga ka saaro oo rabbi tabaaraka wa taala rizq waasic oo barakaysan ku siiyo asbaabtay kamid tahay lagu gaaro rizq waasic قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم